السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي وين وان السلامي صومالي محمدي وان السلامي مeel kasta adduunka joogta qeyriya abshir iyo bash baan rajeynaa maanta maxaan ii wadaa qaxwo ku soo dhawaada timirta ku soo dhawaada qaloonka ku soo dhawaada qaloon dadna waxay dhahan qaloon dadna maxay dhahan daango raaxa marka maxay dhahan daango anaga reer waqooyi waxaan dhahnaa qaloon marka masha Allah ab Soomaaligu waa iska badan yahay Soomaalida waxa la dhahaa waa hayaan hal luqad hal diin laakiin marka si gashidna dadka qaarkood baa hadalkooda la fahminba waxayaan ilaahay mahadi alxamdulillah rabbil caalamiin ku soo dhawaada qaxwada timirta qaloonka masha Allah waxaan u sameeyay timirta iyo qaloonka waxaan soo xasuustay gabar reexamara gabdhaha qaar baa oonay ana waxaan video ka duubiyay gabadhii baa rabay inaan ka sheekeeyo gabar reexamarka cadcad ka Muqdisho degan xamar ama weyne kuwa degan waan isla deganeen mar baan isla deganeen 5 sano ka hor baan u malaynayaa markaan isla deganeen gabadha waan sheekaysan jirnay waxay tiraahday aroortii markaan soo kaco bay tiri habeenkii waxay tiri jubada shaah waxaan ku sii shubtaa bay tiri shaah ama qaxwo cadaysa ana bigeys baan ka dhigtay waxay tiri qaxwo cadays baan tarmuushka dhan jubada shaah weyn u buuxsada buskudkan bay tiri buskudkan waan ku ritaa buskudkan meel baan ku ritaa bay tiri timir qaloon adima macaanka reexamar waa ogtiin macaanka aad bay uga dambeeyaan aroortii markaan soo kaco waxay tiri anoo inta cunin dabba ma geli anjeelo ma kariyo waxba ma qabti ilaan inta isku hubsado ayay tiri marka masha Allah weeye waa dad isuroon waa dadka Soomaalida ugu dambeeyar reexamarka masaakiin weeyaan runta markii laga hadlo waa dad iska masaakiin aan dambi badan saalahayn Soomaalida kale way ka dhib yar yihiin horta inta badan way naga dhib yar yihiin marka masha Allah weeye ku soo dhawaada qaloonka qaxwada buskudka asxaabtayda waligay cunto horteena maalinkeena it is first time now and ku soo dhawaada leeyahay marka waxaan rabay haddana talabaad inaan ka hadlo social media waxa jira dadka qaar intay soo fariistaan hadal macno leheen baba ka hadlaan in la xisaabinayo warka ma hayaan inay xisaab u taalo labada garbood malaa'igu saaran tahay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala boog iyo qalin saa loola daba joogo kii run ku hadlo kii been ku hadlo kii maxay dadka caaya kii maxay aflagaadada badan dadka caaya xumaato baba dadka qaar waxa leedahay tolo ma dhiman doonaan miya social media fariiso ama meel kale fariiso laba goorba hadalka xun ma fiicna waxa la yiraahdaa nabigeen maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri hadal fiican hadaa ku hadashid waxa lagu qoriyaa ajar iyo xasanaad baa lagu qoriyaa hadalka xun ama dadka caay ama hadal saqajaan oo saqa ku hadal waxa lagu qoriyaa dambi marka dambiga iyo maxay ajarkii waaban arkay maxaa dambiga iigay hadalka macaan man ku hadlo maxaa dambiga iigay wanaag waxa la yiri jannada subhanahu wa ta'ala ilaahay saasuu noo tusay jidka qofkii marana naartu tagay kii kan marana jannadu tagay saas buu ilaahay bayaan loo tusay wax naga qarsoon male taasaan waragnaa magarateen marka social media Soomaaliya ay soo galaysaan Soomaaliya oo dhan ma xumee dadka qaar hadal wanaagsan ama wuxuu ilaahay gacanta naga baro soo dhiga qofba xirfadu ilaahay baray ha soo dhigo
kii hadal ilaahay hadal ku shubayna hadal wanaagsan oo laga faa'iidaysto ha noqoto. bishii waxaan ku jirnaa Shabcaan, ilaahay khayrkiisa allaha na siiyo. soon baa ku xiga, waa bishii cibaadada la badsanayay. Shabcaan ilaa soon waxayaan beelaha dembi dhaafka ilaahay subxaana wa tacaala noogu dembi dhaafiyey. waa inaan ilaahay aada u xusuusanaa, istikfaarta waa inaan badaynaa, waa inaan xumaatada iska yaraynaa, dembiyada qaarkood badan waa inaan iska yaraynaa, inta wanaaga wanaagsan oo ilaahayna faray aan ku soconaa insha allah. Soomaali weyne khayr iyo abshir iyo bashbash baan ii rajeynaya meel kasta adduunka joogtaan. bashbash iyo barwaaqo, cimri dheer oo cibaado la nii rajeynaya, cimri dheer oo caafimaad leh, cimri dheer oo nabadgelyo taama adduunka inta Soomaali joogto anakoo dhan allahana siiyo. sidaa iyo kulanti dambe xiiso badan leh. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.